Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal meel walba aad joogtaan kusoo dhawaada kanaalka Hikaaji. Maanta waxaan qaadanaynaa ama dhammaystiranaa casharkii ama sheekadii aynu shalay soo bilownay ee ku saabsaneyd The Laboratory-ga ama shaybaarka ee labada gabdhood ee saaxiibada iyo aabahood dhex madhay. Marka sheekadu qaybta hore waa qaadanay oo shalan soo qaadanay. maantana waxaan qaadanaynaa qaybtii labaad. qaybta labaad waxay leedahay The laboratory was dark. Laboratorygu waa uu madoobaa, mugdi ayuu ahaa. Dark maxaa laga wadaa? waa mugdi ama meel waxa weeye aan iftiin lahayn. Okay, the girls gabdhuhu walked down waxa ay ku soo degeen. walked down markii halkan aan u eegno waxaan macnaha ku salaynaa walk horta waxa laga wadaa inuu qof ku socdo ama socoshada caadiga socodka caadiga baa la marka laakiinse maadaama halkan stairs ku jiraan oo ah jaranjarada guryaha qayb waxaa jira dabaqa oo u baahan in jaranjaro la isu raaco. marka the girls gabdhuhu walking down waxa ay ku soo degeen. down hada waxa weeye markan waxay tusinaysaa in hoos loo socdo. marka walking down waxa ay ku soo degeen the stairs jaranjarooyinka carefully si taxadar leh ayay waxa weeye uga soo degeen. idil gabadha la yiraahdo smelled waxa ay urisay strange chemicals kiimiko ku cusub oo aysan weligeed hore u urin. macnaha guriga aabaheed maadaama uu laboratory haystay experimentsna uu samayn jiray kiimikadan oo kale weligeed ma ay urin gabadhan. what a terrible thing was her father creating. what terrible thing muxuu yahay waxa aadka u xun was her father oo aabaheed creating oo samaynayay. waxa aadka u xun oo aabaheed samaynaya muxuu ahaa baa la isweydiinaya. suddenly hadiiba isla markiiba ilbriqsigiiba they heard waxay maqleen an evil laugh qosol mataqaanaa cod waaweyn ah oo waxa weye dadka ka nixinaya oo cabsi ah. qosol shaydaan baa la iska yiraahdaa marka. it was even xataa worse than waxay ahayd mid kasii daran. worse waa kasii xun oo kasii daran than the one marka loo eego midka idil head ay idil maqashay the night habeenkii before ka horreeyay. habeenkan labada gabdhood meesha tegayaan habeenka ka horreeyay waxaan soo sheegnay in idil ay maqashay ayadoo keligeeda evil laugh ama qosol shaydaaneed oo aan casharka hore tusaale inuu kusoo siiyey sidoo kale muuqaal ayna tusa qaabku uu egyahay. it was even worse xataa way kasii xumayd than the one marka loo eego kan midka idil head ay gabadha idil yiraahdo maqashay the night habeenkii before habeenkan ay maqlayaan evil laughka kasii horreeyay. what if a monster was going to kill them. ka waran haddii monster ama waxa weeye waxyaabaha laga cabsado ee waxa weeye Soomaalida waxaa jira dhagdheer wax la yiraahdo la isku bajiya. marka dadka kalena gaaladana ama waxa weeye luqadda Ingiriiska kalena waxa isticmaalaan wax la yiraahdo monster. monsterku waa shay aad xajmi ahaan u weyn sidoo kale fool xun qofku markuu arkana uu ka baqayo. wuxuu doono noqon karaa bini aadam buu noqon karaa, xayawaan buu noqon karaa, wuxuu doono noqon karaa. macnaha qaabka xayawaan qaabka bini aadam qaabka mataqaanaa wuxuun buu yeelan karaa adiga. marka monster baa loo yaqaanaa. what if a monster ka waran haddii monster baa was going to kill them uu rabay inuu dilo ka waran. macnaha waa su-aal isweydiin mudan. idil had to do something. idil waa inay wax samaysaa. macnaha markaan habeenkan waxay maqleen qosol shaydaameed ka darankii idil ay maqashay. arrintu waa cuslaatay. marka ka waran haddii uu rabo mataqaanaa monsterka waxa la yiraahdo ama waxa weeye dhagdheerka waxaan u naqaano oo kale inuu dilo oo qabsado ka waran haddii uu rabo. idil waa inay wax samaysaa baa layidhi. idil gabadha la yiraahdo had to do waa inay samaysaa something wuxuun waa inay samaysaa. she shouted waxa ay ku qaylisay for help caawiyooy bay ku qaylisay. idil's father idil aabaheed run into wuxuu ku orday the room qolka ayuu ku orday and turned on wuxuu uuna daaray. turned on waa maxay? waxa uu daaray the lights laambadihii ayuu daaray ama layrarkii. oh no he said allah buu yiri you must have learned my secret. waa hubaal inaad sirtaydii
barateen sababtoo ah waxbuu sameynayay wixii uu sameynayay ayuu rabay inuu dadka kala cararayo markii horena wuu soo xiranayay qolkiisa marka wuxuu yidhi oh no allah macnaha he said ayuu yidhi you must have learned my secret waa hubaal inaad barateen sirtayda your monster tried to kill us idil said monsterkaaga ama bahalkii waxa weeye laga baqiyay weynaa ee cabsida ahaa ayaa waxa uu isku dayay inuuna dilo monster he asked monsterka ka shakinaysa macnaha qofka bini'aadanka markii wax la weydiiyo waxa jira dadka waxaadan ka warqabin ama xog ka hayn markii la weydiiyo xogaa meesha aad leedahay ama waxa maamulaysidna laga weydiiyo xogaa qofku waxa galaya yaabkaas marka hadduu magacii oo kale yiraahdo calaamad su'aal baa la saaraya tusaale ahaan oo kale qof baa wuxuu ku yiri waraa adiga iyo cabdi maxaa waxa u samayseen cabdina adiga saaxiib hatta kulmaan mana taqaanidba gabar baaba tahay markaas tira cabdi inta waxa weeye cabdi marka aadaas oo kale halkan waxa ugu jira calaamad su'aalkaas ugu jira monster ayuu yiri monster he asked ayuu weydiiyay monster you mean this يعني he had a pretty doll in his hands wuxuu gacmaha ku watay pretty doll bombala yar oo qurux badan waxaan you mean this kanaad ka wada miya you mean this kana ka wada miya he had wuxuu haystaa a pretty doll in his hands gacmihiisa wuxuu ku haystaa bombala bombalaha yarka inta badan caruurta loo sameeyo si loogu ciyaariyo ayaa waxa la yiraahdaa doll the doll laughed dollkii wuu qoslay ilaa waxa qoslka sameynayay waa asagay the laugh didn't sound so evil anymore qosolku uma muuqan mid aad iyo aad u xun macnaha inta ka badan macnaha mar hore maadaama ay idil maqashay haddana ay saaxiibteed ay maqashay asagoo aad uga siixin markan ay indhaha ku hayso maadaama wixii xadmigoodii ay ka baqasay ama ay u maleynaysay iyo waxa ay aragtay aad u kala duwan yihiin maskaxdeedii oo dhan ba isbedeshay marka the laugh qosolku didn't sound uguma yani uma ay maqleen oo uguma uu waxa way dhawaaqeen so evil anymore wax badan macnaha wixii ay maqlaysay kala lama noqon macnaha wax ka duwan baa u muuqday I made this for you for your birthday kan waxaan u sameeyay biiri xalfadaada dhalashada your birthday waa dhalashadaada macnaha maalinta qofka uu dhashay sanad ka dhashay baa inta badan dadkana waxay sameeyaan qofka waxay sameeyaan xalfad ay ku xasuusinayaan inuu waxa way qofkana qiimo leeyahay wax saa u sii weyn maaha laakiin waa caadadooda iyo dhaqankooda marka I made this kan adan ku sameeyay biiri I made this kan waxaan u sameeyay for your birthday dhalashadaada ayaan u sameeyay wuxuu ka hadlayaa doolkii ama bombali yarka ay gacanta ku hayay ee ay u qabeen monsterka I wanted to give it to you waxaan rabay inaan ku siiyo adiga dan kadib but you can have it now laakiinse hadda waa iska qaadan kartaa maadaama aragtay wuxuu rabay inuu surprise uga dhigo ama waxa weeye uu mataqaanaa ayadan ogeyn inuu u keeno oo uga farxiyo uu rabay marka I wanted to give it to you then adiga ayaan rabay inaan ku siiyo but laakiinse you can have it now laakiinse hadda waa iska qaadan kartaa I hope you like it waxaan rajeynayaa inaad ka heshay I hope waxaan rajeynayaa you like it inaad ka heshay marka qof I hope you like me qof hadda rabtay inaad iga heshay baan rajeynayaa hadda tiraahdo I hope you like me meesha it maxaa ku bedelaysaa me waxaa laga yaabaa inaad tiraahdo you look I hope you like her waxaad rabtaa inaad dhahday waxaan rajeynayaa inaad gabadha ka heshay I hope waxaan rajeynayaa you like her oo HER waxaan rajeynayaa inaad ka heshay wiilkaas rabtaa inaad dhahday inaad ka heshay I hope waxaan rajeynayaa you like him waxaan rajeynayaa inaad asaga ka heshay marka waxyaalaha noocaas saas kale uu bedelaysa marka ugu dambeyntii iyo gabagabadii sheekada maxaa kaaga baxay oo faa'iido ah taas horta waxa weeye qaybta commentiga ama faallada nagula wadaag aad iyo aad ba u mahadsan tahay maadaama maqalkaaga iyo waqtigaaga iyo attentionkaaga ama waxa weeye fojignaantaada aadna siisay aad iyo aad ayaa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu cashirkan waxay inoo soo diyaarshay kaadishe cashirkan ku xiga inta aan ku kulmano nabadino iyo nooli kulanti